gabadh yar oo gurigeeda dhaxdiisa intaas oo saacadood meyd ku ahayd oo haddana digsigii cuntada iyo sabta lagu karin jiray intii lagu riday lagu daboolay waa dhowr geeri weeye waa dhowr xanuun weeye bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون بعد آذي أحن بضن وأن أبحيي نفيس عمر عبد الله يادلي كليب كامركي أن لغيستي وارباهنتنا أي سوقد بيسي لبضا إذا إنلود إلين إيقام إيمان الهردو وساك الصلاة الصبح مركان تكذي كذب سيدا اللو ديلي قفك إنو دينتو وملكو مود أوليهي ووحلة ودأوغيهي gabadh yar oo gurigeeda dhaxdiisa intaas oo saacadood meyd ku ahayd oo haddana digsigii cuntada iyo sabta lagu karin jiray intii lagu riday lagu daboolay waa dhowr geeri weeye waa dhowr xanuun weeye waxaan doonayaa marka halka inaan baaq ooga diro ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ma isweydiiseen colaadda joogtada ah ee aan dhamaanaynin ma isweydiiseen faqrigan iyo xoolo la'aantan joogtada ah meeshay ka timid ma isweydiiseen abaartan iyo roob la'aantan sanad walba laga calaacalayo ma isweydiiseen roob markuu yimaado wabiyadan soo burqanhaya ee dadka iyo guryaha baabi'inhaya ma isweydiiseen dadka qulubtooda oo la isku dhuftay oo kala tagtay oo kala tagaysa ma isweydiiseen cadow ka baxsan in lagu sallido oo dalkaagi uu qaato ku taliyo sababkiisa ma isweydiiseen sababka aan qaxootiga u noqonay ma isweydiiseen ee caruurteena Yurub iyo Ameerika xabsiyada ugu jiraan ee daroogadu u baabi'isay ma isweydiiseen da'yarteeni sababta ay Liibiya saxaraheeda ugu dhamaanaysa ee la adoonsanayo ma isweydiiseen wiilal iyo gabdhaba kuwa badaha ku dhamaanaya Masar ma isweydiiseen gabdhihii yaryaraa ee aan maqlayna maalin walba waa la dafay waa la kufsaday waa la dilay waa dhulmiga waa xadgudubka waa gardarrada waxaan halkan baaq ooga dirayaa cidda doonaysa maanta inay mas'uul ka noqoto Soomaaliya ee u tartamaya ee intaas oo lacaga bixinaya ittaqullah wa wallah idinka oo kafan qaba ayaa qabri iyo guri yar la idin gali doonaan wa wallah idinko qaaqaawan baad rabbi hor istaagi doontaan away bulshada ummadii indhaha u ahayd away haday culimo tahay haday ogaasyo iyo garaadyo iyo wabarra ay tahay boqorro haday tahay siyaasiyiin away maxaa maalin walba ay gabadh u ooyeysaa maxaa maalin walba u arkaynaa gabadh yar oo dhowr iyo 10 jirta ama ka yar in la kufsanayo away cadaaladii away cidda wax kufsanaysa away cidda wax dilaysa ma la soo qabto haddaan kitaabka Ilaahay dib loogu noqon haddaan sunnadii rasuulka dib loogu noqon haddaan shareecada islaamka dib loogu laabanin musiibadani weligeed ma dhamaanayso cidda maanta doonaysa inay mas'uul noqotay Umar wuxuu dhihi jiray asagoo Madiina jooga hasha Ciraaq daaqaysa qodaxda mudda iyo waxay ku turaanturoota aakhira waa la weydiinaya maxaakimta ka dhisan Soomaaliya noocyadeeda waa inay cadaaladda si dhaba u fulisaa haday dadka muslimiinta aan cadaalad lagu dhaqin oo kii wax dila aan la soo qabanin oo kii waxada aan gacanta la goynin oo aan kitaabka Ilaahay aan loogu noqonin waxaad ogaataan Soomaaliya meel xun baa lagu socdaa meel xun baan la tagi doonaa ha loo heeliyo gabadha yarta ah iyo gabdhaha la kufsanaya maalin walba war waa hooyooyinkiin oo waa eedooyinkiin oo waa habaryarihiin oo waa xaasaskiin ma jeclaan lahayd gabadhaada caawin saa loo galo ma jeclaan lahayd gabadhaada intii la kufsado in haddana la dilo horta ma jeclaan lahayd waxaadan jeclaateen
inaad cid kale u ogolaato male saa daraadeed waa in gacan adag lagu qabto dadka noocaasa oo aan loo naxariisanin oo tiirka la geeyo haddii ay cadaato ama reer hebel maya sidan baa xeer noo ahay maya laaluush maya lacag bixi yowmul qiyaama la iskugu imaan doonaa as'alullah ilaahay waxaan weydiisanayaa nafiisa cumar cabdullaahi cidda sa u gashay ilaahay inuu adduunyada kaga aargoosto jalla jalaalu aakharana ilaahay subxaanahu wa tacaala cadligiisa uu mariyo gabdhaheenna ilaaliya war hooyooyinkan ilaaliya war gabdhaheenna ilaaliya war xaasaskeenna ilaaliya war eedooyinkan ilaaliya war qof dumara way jilicsan tahay ha yaraatee ha weynaata ilaaliya waalidiinay feejagnaada waalidiinay indhaha fura hadday hooyadii baxdo oo aabbihii baxo gabadhan yar xaggee lagu ogaa gabdhaha yaryar xaggee lagu ogyahay arrintaas ayada abaan doonayey inaan damiirkayga iyo dadnimadayda inaan soomaalinimadayda muslimnimadayda kadib inaan idinla wadaago xanuunka iyo dhacdada reerka ay gabadha ka baxday iyo kuwii ka horreeyay la dulmiyeyna waan u tacsiyeynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa mar labaad iyo mar saddexaad kuwaasi ilaahay inuu ka aargooso adduun iyo aakharaba sali allaahumma wasallama wabaarak